بسم الله الرحمن الرحيم السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنا هبون داوديال إذا لهانتين با meel kasto muuqeegu codkaygu idinka soo gaadhayo ku soo dhawaada wixii war naga soo gaadhay geeyga Soomaaliya dogto iyo guud ahaan dunida inteeda kale halka aad wararka si toos ah kala socotaan waa xarunta guud telefishinka caalamiga ee badda 24 TV ku leeyahay magaalada Hargeysa caasimadda waa Somaliland warka waxaan la socodsiinay hadii ay Raxmaankii raali ka ahaado anigoo Naasir Cabdulqaadir Cabdiwahaab Naasir Talasame qodobada daawadayaal warkayga ku daawan doontaan ku ugu door karoole waxa kamid ah gudoomiyaha sariflayaasha Somaliland Barkhad Coofliye ayaa sheegay inaanu saameyn ballaaran shaqadooda ku yeelan xanuunka coronavirus Suldaan Naasir Suldaan Cabdi Ismaaciil oo kamid ah beelaha sida weyn u doorbidaya hirgelinta arrimaha saami qaybsiga iyo sidoo kale kootada ayaa sheegay inaana aqbalaynin doorasho Somaliland ka dhacda oo bilaa saami qaybsi ah ciidamada maamul goboleedka Jubbaland ee dawladda Soomaaliya ayaa sheegay inay fashiliyeen qaraxay kooxda xarakada Al-Shabaab ka fulinaysay magaalooyinka Jubbada Hoose ee maamulkaasi magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamul goboleedka Galmudug ayaa amnigeeda la adkeeyay iyadoo la filayo inuu ka qabsamo shirka madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale madaxda maamul goboleedyada u dhaxeeya daawadayaal wararka dhankaas iyo caalamka idinka haynana waxa kamid ah dalka Mareykanka ayaa markii ugu horeysay magaalada Ohio loo ogolaaday in masaajid ku yaala eedaanka kor loo qaado daawadayaashaanu jecel lahayo kuwaasi waxa ahayn qaar kamid ah qodobada warka imikii haatan isku diyaariya qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan